بسم الله الرحمن الرحيم. meeshaan maanta waxaan isugu nimid xildhibaanadii federaalka oo ka soo jeeday ama deegaan doorashadooda ahayd Puntland. waxaan meeshaan ka akhriyi doonaa warmurtiyeed uu ku dhan yahay warka aanu meeshaan u nimi maantay. warmurtiyeed 3 bisha February magaalada Muqdisho. shir la tashi oo qabsoomay 30 bishii Janaayo 2020 laguna qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa isugu yimid xildhibaanada iyo senatarada ku metela Puntland golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana diiradda lagu saaray kulankaas xal u helidda dhibaatada haysata ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata deegaanada Puntland. kadib markaan aragnay isku jawaabidda wasiirada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer Puntland oo ay u dambeysay falcelintii wasiir Goodax oo ahayd mid gaf badan xambaarsanayd munaasibna aan ku ahayn xaaladii taagneed annagoo og in wali dastuurkii qabyo yahay taasoo keentay inaan si cad looga heshiin wax qaybsiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada annagoo og in arrimaha awood wadaaga oo ay ka mid tahay waxbarashada ay tahay in heshiisyo iyadoo xaajood laga gaaro sida ku cad qodobka 52 iyo 54 ee dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya. annagoo og in mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka maaliyadda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo khayraad qaybsiga iyo kuwa kale oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay ku shaqeeyaan isfaham xilkasnimo iskaashi wada hadal iyo hoggaan suuban sida ku xusan qodobka 52 ee dastuurka halka mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku fashilmeen arrintaas. annagoo garowsan dadaalka ardayda Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ardada Puntland oo dib rafaad ku soo qaatay 12 fasal iyaga oo soo maray dhibaato burbur dhaqaale xumo iyo waliba iyagoo aan helin taageero dawladeed haddana ay sugayeen adeega waxbarashada dawladeed. annagoo og in arrintan ay qusayso dhammaan ubadka Soomaaliyeed maadaama arrintan ay saameyn weyn ku leedahay mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. annagoo gudanayna waajibaadka dastuuriga ah ee matalaadda deegaan doorashada sida ku xusan qodobka 61 ee dastuurka ku meel gaarka ee dawladda Soomaaliya. waxaan halkan ku soo jeedinaynaa warmurtiyeed qodobaysan. qodobka 1 waxbarashada ardada Soomaaliyeed ay ka mid yihiin ardada Puntland waa xaq dastuuri ah oo lama taabtaan ah sida ku cad qodobka 30 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka mana dhici karto in awoodii iyo magacii dawladda federaalka ay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku dhibaateeyaan waxbarashada ubadka Soomaaliyeed iyagoo awoodii si khaldan u isticmaalaya. qodobka 2 sida uu sheegay wasiir Goodax ma jirto xildhibaano iyo senataro ka soo jeeda Puntland oo ka caalwaayay Puntland balse xildhibaanada Puntland waxay door fiican ka qaateen arrintan xal helideeda iyaga oo la kulmay dhowr jeer oo kala duwan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Puntland iyagoo sameeyay dhexdhexaadin halkaas la isku soo dhawaaday balse wasiir Goodax uu burburiyay hawlihii dadaalada ahaa ee socday xildhibaanada labada aqal ku jireen oo ahayd inay arrintan xal u helaan. sidoo kale xildhibaanada labada aqal ma oga mana maqal wasiiro xukuumadda federaalka ah oo arrinta u tagay Puntland. qodobka 3 waxaan kula xisaabtamaynaa wasiir Goodax arrintan uu sameeyay annagoo adeegsanayna awoodda dastuuriga ah ee la xisaabtanka golayaasha sida ku cad farqada 2 xarafka ba iyo ca ee qodobka 69 ee dastuurka ku meel gaarka ah. qodobka 4 waxaan la kulmaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo igmaday shaqadan wasiirka si uu ugu adeego ubadka Soomaaliyeed. qodobka 5 madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa mas'uuliyadi ka saaran tahay inay dhacdadan ka qaataan tilaabo u qalanta ubaxa Soomaaliyeed oo moralkoodii iyo mustaqbalkoodii mugdi la geliyay. qodobka 6 waxaan ardayda iyo waalidiinta u xaqiijinaynaa in arrintaani ay wanaag ku soo dhamaanayso annagoo kaashanayna qof kasta oo wadaniyad iyo Soomaalinimo ku jirto. qodobka 7 ugu dambeyn waxaan ku boorinaynaa waalidiinta iyo ardayda dhibku gaaray inay istejiyaan jawaabna ay naga sugaan.
intaasi waa war-saxaafadeedkii ay xildhibaanada labada aqal Puntland ka soo jeeda deegaan doorashadoodu ahna xildhibaanada federaalka u metela Puntland ay isla soo qaateen waxaan rabaa in yar inaan ku daro intaan xildhibaanada kale aan u wareegin runtii arrintan waxay soo socotay muddo badan sanadkii hore soo bilaabatay horaantiisii marar badan waa la soo galay waxa ugu dambeysay bishii 9aad oo aan runtii arrintan aan xildhibaanada oo labada aqalba khaas ahaan xildhibaanada golaha shacabku ay dadaal fiican ka galeen runtii wasiir goodax marar badan baa u tagnay si fiican buu noo qaabilay si fiican buu noo soo dhaweeyay si fiican baan arrintan uga wada hadalay war-saxaafadeedka saan ku sheegnayna dadaalkii aan wadnay oo wali aan ku jiray isagoo aan guuleysan wasiir goodax isagaa dib uu noqday inuu ka hadlo midda aan rabo meeshaan inaan ku daro waxay tahay khaladaadka jira dhinacyo badan buu taabanayaa ciyaalkana arrimahooda oo de masiirkoodu inuu galo isu jiidiyo isu tuurtuur maaha sidaan haddaba warmartiyeedkan ku sheegnay waxaan rabaa marka halkaa inaan luqdadaa ku daro khaladku wasiir goodaxna hadda dabcan khaladka u weyn isagaa ku jira oo hadda muuqda laakiin khalad kalaa jira oo wasaaradda Puntland laftigeeda ay oo ka jira oo dhinacan ku saabsan taasna khalad ahaan anigu markaan fiirinay iyo dad kale oo arrintan galay waxaan u tiirinay inay tahay agaasimka guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland isaga oo marar badan isku dayaya inuu arrimahan uu si khaldan ugu turjumo madaxda Puntland taasna waxa la rabaa in talaabo laga qaato wada jir ah waana arrinta ay xildhibaanada Puntland ee u tagi doonaan Puntland inay kala hadlaan sidoo kale waxaan u baahanahay in wasaaradda waxbarashada ee federaalku heerkan ay hadda ku marayso in dada ay samayso inay arrinta cirka mariso oo laga dhigo arrimo khaldan oo si khaldan loo isticmaalo in aanay soo noqnoqon si aanay u soo noqnoqon in talaabada ku haboon ay qaataan madaxda u igmatay inay shaqadan qabtaan hadda waxa muuqata wasaaradda federaalku inay ku fashilantay inay shaqadan qabtaan marka cidda laga sugayo inay hawshan wax ka qabato waa ciddii u igmatay inay shaqadan qabtaan intaasan ku soo koobaya waana mahadsantihiin